السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha qaaliga ah kusoo dhawaada barnaamijyadeena caafimaadka indhaha. Maanta insha Allah waxaan idinla wadaagayaa calaamadaha ugu waaweyn ee lagu garto qofka indhihiisa ay qalalan yihiin. Runtii waxaan kasoo hadalnay indha qaleelka waxyaabaha sababa. Maantana insha Allah waxaan ka hadli doonaa qofka indhihiisa ay qalalan yihiin ee ilinta ay ku yartaa calaamadaha ugu waaweyn ee lagu garto. Calaamado aad iyo aad u tiro badan ayaa jiro, laakiin calaamadaha kuwa ugu waaweyn ee ugu badan ayaa maanta idinla wadaagayaa oo qof walba oo indhihiisa ay qalalan yihiin lagu arkayo. Midda koowaad waa cuncunka. runtii cuncunka indhaha waa wax ugu weyn lagu garanayo qofka indhihiisa ay qalalan yihiin. Qofka inta badan wuxuu xoqayaa indhaha laba geesaha ayuu xoqayaa, labada god ee indhaha ayuu xoqayaa, indhaha dhan ayuu qofka xoqayaa. cuncunka indhaha waxyaabaha ugu badan ee sababa waa indhaha inay qalalan yihiin. Midda labaad waa indhaha inay qofka hurayaan, inay qofka oo u maleynayo qofka indhaha dab inay kaga shidan yihiin. Indha hurka waa waxyaabaha ugu badan ee indha qaleelka sababa oo ilinta qofka markay ku yaraato indhihiisa way hurayaan. Midda saddexaad inuu qofka dareemo indhaha inay wax kaga jiraan, Boreal sensation inuu qofka dareemo oo qofka inay qoryo iyo wax inay indhaha kaga jiraan inuu dareemo qofka. Calaamada kalena waa indhaha qofka inay gaduudan yihiin. Calaamada qofka inay gaduutaan indhaha indha qaleel bas ma sababo, waxyaabo kale way sababaan, laakiin waa calaamad ka mid ah lagu arko qofka indhihiisa ay qalalan yihiin. Laakiin calaamadaha boqolkiiba 90 waa cuncunka indhaha qofka inuu dareemo iyo indhihiisa inay dab ay kaga kacayaan oo hur badan oo indhaha ka dareemo, iyo qofka cuncunkaasi iyo hurkaasi qofka inuu indhaha ka dareemo. Qofka marba hadduu calaamadaas isku aragtid waxaa indhahaaga waxaa ku yar ilinta la soo daanaya ayaa ku yar. Videogan waxaan kaga faa'iideysanaynaa qofka calaamadaha lagu garan oo lagu arkayo indhihiisa markay qaleel ay noqdaan. Waa idinkaga mahadcelinayaa daawashada videogan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.